waa BBC saacadda Afrikada Barina waa 7 aroornimo oo gowa waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan khiyaartayna dhageysanaysay waa Bushra Nuur Maxamed oo idin daadihinaysa barnaamijka subaxnimo. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah Mareykanka oo sheegay inuu hayo cadeyn muujinaysa in coronavirus uu ka soo unkaday shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee Shiinaha. Djibouti oo soo saartay qorshayaal cusub oo lagu badbaadinayo dhaqaalaha dalkaasi. qiimeyn lagu sameeyay khasaarihii ka dhashay fatahaadii Qardho. qiimayntii bariyo la soo dhaafay ay samaysay dawladda Puntland iyo hay'adaha ka howlgala Puntland waxaa warbixinta ogaatay dadka guud ay ku yeelatay saameynta waxaa tiradoodu gaaraysaa 48,000 oo qof. waxaa dhintay inta la hubo 8 qof, waxaa la la'yahay 10 qof. waxaan sidoo kale warbixin idinkaga haynaa dhibaatada ay la kulmeen qaar ka mid ah Soomaalida UK ee dadkii ay jeclaayeen ku waayay COVID-19. waxa dhacday markay saacadu mareysay 12 iyo barkii duhurnimo ayaa maaragtay dhakhtarka noo soo wacay wuxuu noo sheegay inay xaaskaygii ay geeriyootay. runtii anaga maskaxdeena ku xakameynayna xukunka Ilaahay mar walba, haddana waxayna noo noqotay qalbigeena wuxuu noqday sidii qof qol iftiim ah oo ku jiray oo hal mar nalkii lagu dameeyay. Puntlandna dadka dhag jalaq uma siinayaan wacyigelinta bahda caafimaadka iyadoo dadka tirada qaba xanuunka ay sare u kacday. qodobadaas iyo kuwa kale oo caalamkii Soomaalida ku saabsan ayaad barnaamijkan uu soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Caaqilka ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdishakuur Casoowe. mahadsanid Bushra. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajeynayo in doorashada madaxtinimada ee bisha November ay noqon doonto sida afti loo qaadayo habkii uu ula tacaalay cudurka coronavirus, maadaama uu aaminsan yahay inuu shaqo aad u wanaagsan qabtay. shir telefishinada laga daawanayay ayuu Mr. Trump ku difaacay go'aanadii uu xayiraadaha ku soo rogay, kuwaasoo uu sheegay inay dad badan noloshooda badbaadiyeen. wuxuu gaashaanka ku dhuftay eedeymo loogu jeediyey inuusan si dhaqso ah tallaabo u qaadin. dhanka kale Mr. Trump wuxuu cusboonaysiiyey weerarkii uu ku qaaday dowladda Shiinaha ee ahaa inay ku guul daraysatay hakinta fiditaanka fayraska. dhowaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inay jirto caddayn la taaban karo oo muujinaysa in cudurkaas lagu sameeyey shaybaar ku yaala Shiinaha, laakiin wax caddayn ah ma uusan soo bandhigin. waxaa la saadaalinayaa in dagaalka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha uu sii xoogaysto, saameyn ba'anna ku yeesho suuqyada. in ka badan 67,000 oo Mareykan ah ayaa hadda u dhintay cudurka COVID-19, hase ahaatee inta badan gobollada dalkaas waxay hadda bilaabeen inay xayiraadaha khafiifiyaan. tirada kiisaska COVID-19 ee laga xaqiijiyey dalka Brazil ayaa kor u dhaaftay 100,000, halka in ka badan 7,000 oo ruuxna ay u geeriyoodeen cudurka, taasoo ah tirada ugu badan ee ku dhimatay wadamada la isku yiraahdo Latin America. laakiin iyadoo taasi ay jirto, madaxweynaha dalkaas Jair Bolsonaro ayaa mar kale ka soo muuqday fagaare isagoo gacanta ku salaamaya boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa, wuxuuna dadka reer Brazil ku booriyey inay shaqooyinkooda dib ugu laabtaan. dowladda Britain ayaa sheegtay in laga yaabo inay go'aansato qaadista xayiraadaha, laakiin dhowr waji laga kala dhigi doono. waxay dowladdu intaas ku dartay in mar kale ay xayiraadaha soo celin doonto haddii la arko khatar hor leh oo cudurka uu soo rogaal celiyo. mas-uuliyiinta dalka Venezuela ayaa sheegay in ay samayn doonaan howlgal military oo ku wajahan xeebaha dalkaas kadib markii la fashiliyey wax ay ugu yeereen weerar ay ku soo qaadeen ciidamo faragelin shisheeye wada oo saaran doomo kana yimid dalka dariska la ah ee Colombia. hase ahaatee xukuumadda Bogota waxay beenisay inay wax lug ah ku lahayd arrintaas. warkii waa naga intaas. Bushra. mahadsanid Cabdishakuur. dhegeystayaal u diyaar garooba qeybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inay jirto caddeyn weyn oo muujinaysa in fayraska corona lagu sameeyey shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. wararkii ay BBC da amuurtaasi ka qortayna waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Yuusuf.
Mike Pompeo ayaanan soo bandhigin caddayn taageeraysa warbixintiisa, balse waxa uu sidoo kale sheegay inuusan hayn sabab uu shaki u geliyo warbixinta waaxda sirdoonka Mareykanka ee tibaaxaysay in fayraskan uusan ahayn mid bini'aadam gacantiisa ku sameeyay. saynisyahano badan ayaa aaminsan in coronavirus uu ka soo unkamay xayawaanada duurjoogta ahi ee lagu kala iibsado sayladaha Shiinaha ayaa horay gaashaanka ugu daruuray wararka sheegayay in mid ka mid ah shaybaaradiisa uu ka soo fakaday fayraskan dunida halakeeyay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay u sheegay in coronavirus lagu sameeyay shaybaar ku yaala wadanka Shiinaha. Hase yeeshee xafiiska agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa sheegay in ay wali baarayaan sidii uu fayraskan ku bilowday, balse ay ogaadeen in xanuunka COVID-19 uusan ahayn wax uu qof sameeyay amaba unugyadiisa laga farsameeyay. tan iyo markii cudurkaasi ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore ayaa coronavirus waxaa la xaqiijiyay inuu soo ritay 3.5 milyan oo qof oo ku nool daafaha caalamka, halka in ka badan 240,000 oo qofna ay u dhinteen. dhanka kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ay isku bedeli doonto afti ku qotonta sidii uu uga falceliyay coronavirus, sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay inuu shaqo weyn qabtay. waxa uu Trump sheegay in go'aankiisii uu ku soo rogay xadidaadda uu badbaadiyay nolol badan, waxaana gaashaanka u daruuray eedeymaha ah inuu ku guuldareystay inuu si dhaqsi ah uga falceliyo. madaxweynaha ayaa mar kale Shiinaha ku weeraray inuu ku guuldareystay inuu joojiyo faafidda xanuunka COVID-19, balse waxa uu sheegay in tallaal loogu talagalay xanuunka la soo saari doono. waa inaannu helnaa tallaal. cid kastoo samaysaba taageero weyn ayaan u noqon doonaa, oo waxaan doonaynaa inaan helno tallaal sababtoo ah dalkan wuxuu u baahan yahay dawo. waadna heli doontaan dhammaadka sanadka. codkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii Cabdiqaadir Yuusuf. haatanna Puntland, tirada dadka laga helay cudurka coronavirus ayaa siyaaday shalay 11 qof oo la baaray. 7 ka mid ah ayaa laga helay. dadkana ayaa ahaa kuwa laga shakisan yahay, waxaana jirta in dadka wacyigelinta la siinayo aysan weli dhagjalaq u siinin. Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Xirsi waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland. Axmed Cawil ayuu uga waramay xaalka ay hadda ku sugan yihiin bukaanadii hore ee cudurka laga helay. alxamdulilah dadka badankooda aad ay u fiican yihiin, meelaha xaalad criticalna kuma jiraanin. dad yar 2 qof meelahaas xoogaa xanuuna dareemaya, ayaguna hadda dad aad u sii liita ma ahan, laakiin dadka intooda badan waa fiican yihiin. laakiin dawasir waxaa moodaa cudurkii deegaanada Puntland waa ku sii fidayaa. dadweynihina waxaa moodaa wacyigelinta la jeedinaya iyo inay shaqaadanayo sidaan weli meeradihii iyo suuqyadii iyo waa la isdhex fadhiyaa. marka tallaabooyin kale oo aad qaadasaan ma jiraa oo ka baxsan tallaabooyinkii hore? wallahi sidaa sheegtay, dadka waa la wacyigeliyey si ballaaran. hab kasta oo la isugu gudbiyo, hadday masaajida iyo culamo loo adeegsan lahaa, raadiyoyo, TV-yo, si walba waa loola kulmay, waa lagu wacyigeliyey. waxa weeye waa lagu sheegay tallaabooyin badan iyo awaamiir badan oo looga hortagaya xanuunka waa la soo saaray. badankoodiina waa ay fuleen, laakiin dee dadku waa iska Soomaali oo waa laga yaabaa inaysan 100% siday ahayd wacyigelinta ama awaamiirtu aysan u qaadan, laakiin in badanna waa hirgashay. inta dhimanna waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaaho inay dadku qaataan oo fahmaan xanuunkan inuu yahay xanuun dilaa ah, aan waayeel iyo yar iyo mid dhexe midna waxa weeyaan awsan ogolaansho ama garanti u haysan ama damaano inuusan ku dhacaynin, qof kasta ku dhici kara, dilina kara. bulshadana inay intaa fahamto ayaan mar labaad usoo jeedinaynaa. dawladuna horena wacyigelina waa u samaynay, waana wadnaa tallaabooyin dheeriya. hadda waxa weeye maadaama xanuunkii hadda gobolada iyo degmooyinka iyo kusii faafayana, tallaabooyin dheeriya in lasoo saarana dawladda waa rajeynayaa. sida ogtahay hadda arrimo kale oo natural disaster kale, musiibooyin kale iyo daadad iyo waxba iyaguna jiro oo mataqaanaa laftigooda mashquulkooda iyo culayskooda lahaa, laakiin waa rajeynaya tallaabooyin kale oo ku habboona in lasoo saari doono. wasiir, laakiin xanuunkan culaysyo badan buu la imaan karaa, dadkana xil baa idinka saaran. ma aysan ahayn marka tallaabooyinkaada kuwii hore inaad soo jeedisaan? way tahay tallaabooyin hore oo adag waa soo jeedinay, badankoodii waa hirgalaysaan sheegay. kuwo kalena waa la soo jeedin doonaa maadaama hadda xaaladdu ay kasii darayso. laakiin waxaa jira tallaabooyin badan oo lasoo saari lahaa iyo dadkeenu isma waafaqayaan. dadkii waa dad danyara. haddii hadda tusaale ahaan isu socodka la joojin lahaa ama waxa weeyaan maalintii oo kale bandow magaalooyinka laga dhigi lahaa, waxyaaba badan oo lasoo saari lahaa, dadkii ma saamaxayso danta iyo duruufaha ay ku nool yihiin. taa laftigooda waxay keentay mataqaana waxyaaba badan oo la fulin lahaa ama go'aamo badan oo lasoo saari lahaa oo looga hortegi lahaa xanuunka inaan dadkeena aysan ku habboonayn oo mataqaana duruuftooda dhaqaale ama nololeed marka la fiiriyo. laakiin dadka waxa keliya xanuunkan aan dadka usoo jeedaynaa wuxuu yahay
qof walba inuu naftiisa iyo ehelkiisa iyo bulshada uu la nool yahay uu mas-uuliyad iska saaro. dhinaca kale waxaa muuqata dadka cudurka laga helay qaarkood inay dadweynuhu dhinaca social media lagu soo qorayay inay iyagoo magaalada dhex maraya la arkayay, marka iyaga laftigooda muwaysan ahayn inaad la socotaan inay guryahooda iyo meelaha lagu hayay inaysan ka bixin. waxaan weynayaa warka social media rasmi ma ahan. dadka xanuunka laga helo laba noocun baa loo karantiilaa, dad mas-uuliyiin ah oo laga aamin noqdo inay guryahooda joogaan, iyo dad ama xaaladooda culus tahay ama looga shakiyo inay socsocod samaynayaan xarumaha karantiilka la geeyo. waxaana cid aan ognahay oo xanuunka positive oo socod samaysana ma jirto. tiimam caafimaad oo u xil saaran la socodkooda oo subax kasta la xiriira oo xaaladooda la socda oo qeybtooda mataqaanaa gargaarka u baahana oo sida oxygen wixii lamida gargaarka u baahana u sameeya, qaybta u baahan follow up iyo la socoshada iyo mataqaan xaaladooda in la socdaan la socota. cid aan ognahay xanuunka positive oo magaalo wareegtaana ma jirto. dadku qaarna waa qaar lagu aaminay in guryahooda ay ku sugnaadaan oo ay isku karantiilaan oo dad fahmaya ah. ayagu waa qeyb saan sheegay xaalad in lala tacaalo u baahan oo xarumaha isolationka la geeyey ama karantiilka. marka ma hayna anagu cid positive suuqyada wareegaysa, laakiin lacala haddayba dhacdaba waxa weeyaan talaaba laga qaadayaa meelaha ku habboon baa la geynayaa. kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir yuusuf xaaji, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka puntland oo u waramayay wariye axmed cawil oo garowga jooga. weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal waa b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waxaa inoo soo socda warbixino ay ka mid tahay qiimeyn lagu sameeyey khasaarihii ka dhashay fatahaadii Qardho, balse marka hore Jabuuti. dowladda Jabuuti ayaa dadaal ugu jirta xakameynta saameynta dhaqaale ee fayraska corona. canshuur dhaaf muddo 3 bilood ah ayay dowladda u sameysay ganacsiga iyo shaqaalaha. shirkadaha ganacsigana waxaa laga mamnuucay inay shaqaalo eryad sameeyaan. haddaba waxaan amurtaasi ka wareysanay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jabuuti Cusmaan Ibrahim Roble, waxa uuna u waramay Xasan Sheekh Cumar. waxa weeyaan cudurka COVID-19 aan afka qaalaad ku niraahno waxa weeyaan waa xanuun aad iyo aad u saameeyay xagga caafimaadka iyo xagga dowladda Jabuuti. laano waxa weeyaan waxa la qaatay qaraaro adag si looga hortago. qaraarada adagna waxa kamid ahaa in maadartay danta guud ee danta shacabka ay ku jirto, sidoo madaxweynuhu yidhiba in dadku xaafadowga ay ku ekaadaan oo ayaa maartay ka dhacay. markaas la ajligeed waxa la wixii shaqo ah in loo baahnayn in maadartay oo dhabar ahayn waa la joojiyey. markaa shaqaalihii dowladda iyo kuwii kale ee ganacsatada gaarka ahba xaafadaha ay ku sugan yihiin, sida la ajligeed dakhligii iyo dhaqaalihii aad iyo aad ayuu u saameysmay. wasiir, shirkadaha dalka Jabuuti iyo guud ahaan shaqaalaha dalka Jabuuti xanuunkani saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay shaqooyinkooda? dowladdu markii sidaa loo galay qaraarka adag ee xaafad fadhiga loo galay, dowladdu waxay soo saartay wareegtay soo saartay ay ku leedahay uu madaxweynuhu saxeexay oo la yidhi dadkaasi waxaa la galay iminka waqti khaas ah oo maartay saameynta cabuqa aan ku jirno oonan la taabsan karin in waxa halbowlaha u ah ninka shaqaalaha ah ee ah bishaaradiisa. marka waxay u samaysay dowladdu dhagaleyaal badan ay u fasaxayso inay ku shaqaysiiso qofka xaafadda isagoo jooga ay ku shaqaysiiso, qofka koonjeegii wixii fasaxii xaqa u lahaa ay siiso, qofka maadartay isagoo shaqada intaa uga baahan tahay ay ku shaqeeyo. marka waxaan oran karayaa qof shaqo waayey oo bishaaro waayey inta bisha 7 cisho ee bisha Mars iyo Abriil waayey ma jiro. sidaas laadigeed taabaan soo saarnay ahayd. markii dambana waxaan ku noqonay oo waxa ku jirtay ahayd in dawladdu ay gargaar ay u sameynayso maartay shirkadaha iyo leeta shaqaalahaba ay mucaawino gaara oo ka baxsan caadiga ay u sameyso. dawladdu ma jiraan ilaa hadda qorshayaal ay ku caawinayso waqtigan adag dadka danyarta ah iyo shirkadaha dabcan dhaqaalahooda oo hoos u dhacay ee dalka Jabuuti? dawladdu qaraarkii ugu horeysay iyo nadagladii ay soo saartay ugu horeysay waxay iminka ku xigsiisay bishan 29keedii waxa la soo saaray xagga shaqada ku saabsan iyo xagga gargaarka ku saabsan shirkadaha iyo shaqaalaha mishaaradooda. dawladdu waxay soo saartay wax maadad
qaraar taariikhi ah oo loo sameynayo in ninka shaqada siday doonta xaaladdu ahaatee la garab joogsaday oo dowladdu iyo ninkii ganacsiga ay isku garab galeen si ay ugu mudartay garantii ay ugu sameeyaan bishaarada shaqaalaha sidaas la adigeed waa wareegtada iminka maanta soo baxday ee jadiidka ah waxay qayaxaysaa in qof shaqo aan laga eegi karin qof madartay amba dowladda ha ka shaqeeyo amba shirkadaha gaarka ah ee tirsan ha ka shaqeeye bishaaradii la siiyo bishaaradahan u eegnay xaaladda maaragtay guud dalku galayo aan u eegnay oo 30% ay dowladdu qaadatay 30% qofka laga gooyay iyo 40% ganacsatadu ay bixinayso sidaas ayaa baadatay aan mooday inay dan tahay waxaa kaloo jirta qaraaro kale oo la socda oo garab socda shirkadaha lagu caawinayo ayna bixin waxa la wixii cashuuraadka waxa la wixii maaragtay bulshada kharashka bulshada ayna bixin muddo 3 bilooda go'aamadan ku aadan shaqaalaha dawladda inaan laga joojin shaqooyinka isla markaana lagu caawiyo shirkadaha iyo dadka caawinta u baahan ma kuwa ku ega waqti go'an mise waxa ay ku eg yihiin ilaa iyo inta ay xaaladdu iska bedelayso intaas waxay soconaysaa insha Allah horta waxaan ilaahay weydiisanaynaa inay ilaahay maaragtay noo soo gaabiyo waqtigan dhibaatada aan ku jirno uu naga saaro maanta naga saaro bari naga saaro oo waqtigu soo gaabto laakiin waxaan imika ahaan aan ka sii digaynaa in 3 bilood gudaheeda aan arintan aan sii eegno kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee Djibouti Cusmaan Ibrahim Roble oo u waramayay waryaha BBC-da Xasan Sheekh Cumar haatanna Ingiriiska qoysas badan oo Soomaali ah oo ku nool UK ayaa nolosha eheladoodii ku waayay COVID-19 waxaana taasi uga sii daran in dadkii ay jeclaayeen aanay hareer joogin saacadaha ugu dambeeya ee noloshooda taasina waxaaba u sii dheer in aaska dadka dhintay si ka duwan sidii hore uu u dhaco ayna xadidan tahay dadka ka qaybgeli kara Mawlida Xaaji Cabdi ayaa magaalada London ku wareystay qoysas geerida ay u sii dheer tahay xaalado adag oo xanuun badan qalbigan wuxuu noqday sidii qof qol iftiim ah oo ku jiray oo hal mar narkii lagu dameeyay oo yaani mugdi waa dareemi kartaa gudcurkaasi iyo murugadaasi waxay diris loo noqdeen tobanaan qoysas Soomaaliyeed oo kamid ah bulshada dalkan ee sida baan ugu dhuftay cudurka COVID-19 iyadoo malaayiin muslimiin ah oo dalkan ay ku dhaqan oo Soomaalidu kamid tahay ay ku jiraan bishii barakeysaneed ee Ramadaan waxay u noqonaysaa qoysas badan inay waayeen dadkoodii ay jeclaayeen waqtigana aanu ku simin in soonqaadkan ay la dabaaldegaan warsame maxamed geedi oo loo yaqaan xidig xaaskiisa Sayna Mahdi Cabdille waxay ka mid noqotay dadka ku dhow 30,000 ee UK ugu geeriyooday cudurka COVID-19 markii la dhigay xaaskayga isbitaalka yaani muddo 3 toddobaad tiilay toddobaadka ugu horeeyay ama 10 cisho ugu horeeyay waa wada xiriiri jirnay inkastoo aan la ogolay inaan booqano way karantiil ayuu ku jirtay marka social media ayaan kala xiriiri jirnay sida WhatsApp-ka marka waa la socona xaaladeeda caafimaad oo dhakhtarka yaani markii la kulanto iyo wixii processka daawadeeda ay marisay qaabka loola dhaqmayo daawo ahaan laakiin runtii walaal waxaan arintii aad yaani murugo iyo walwal xooggan ugu bilaabatay markii xaaskayga la geliyay xaaladda miyirbeelka ah sida warsama sheegay qofka markii la geliyo qaybta xaaladda degdeg ah ee isbitaalka dadkiisu lama hadli karaan booqasho warkeeda iska daa haddaba sidee warsama uga warhayay xaaladda xaaskiisa awal ayda la xiriiri jirnay ayda madka maadaama meesha ay ka baxdo xiriir aysan jirin waxay noqonaysaa inaan la xiriirno dhakhtarkii laakiin qofkii oo ehelkaada ahay oo sida xaaskaada oo kale caruurta ilmahaagi oo kale waalidka oo kale walaalka oo kale oo aadan gadgadi karin oo aadan yaani xaaladda ugu dambaysa uu ku jira aadan ag istaagi karin oo saacada maaragtay wixii bini'aadan wax ma qaban kartid laakiin nafta inaad ku qanciso runtii يعني aad aragto xaaladooda waxa qofka meesha uu marayo ayaa maaragtay taas ayaa walwal ugu abuurtay xaaladda oo mar walba ka sii dareysay marka runtii waxay bilaabeen markii dambe inay 40 saac mar report na siiyaan boqolaal qof oo dadkooda ku dhinteen isbitaalada oo ma helin fursad inay macsalaameeyaan ama ay dul joogaan geeridooda haddaba sidee warsamay ku ogaaday geerida xaaskiisa Saynab oo 5 caruur ah isku dhaleen maalintii ay dhimad doonto 5tii subaxnimo ayaa waxay soo wacay dhakhtarka waxa uu sheegay xaaladeedu inay adag tahay
ayuu ii sheegay oo maaragtay oo ka dayriyey haddaba marka yacni taasi marka waxay samaysay nagu abuurtay manaha haddana welwel saa'ida marka waxaa dhacday markay saacaddu maraysay 11 iyo barkii ilaa 12 inta u dhaxaysa ee duhurnimo ayaa maaragtay dhakhtarka noo soo wacay wuxuu noo sheegay inay xaaskaygii ay geeriyootay runtii anagoo maskaxdeena ku xakameynayna xukunka ilaahay mar walba haddana waxayna noo noqotay qalbigeena wuxuu noqday sidii qof qol iftiim ah oo ku jiray oo hal mar narkii lagu dameeyey oo yacni mugdi waa dareemi kartaa ilaah u naxariiso anaga iyo ilmaheena iyo carruurta iyo qaraabada inteeda kalena samir iimana allah naga siiyo inkastoo warsame iyo qoysas badan tiiraanyada geerida ay ugu darsantay dadkii ay jeclaayeen oo aanay garab joogin markii ay geeriyoonayeen waxaa jira dad kale oo si ka duwan sidaasi ay u dhinteen ehelkoodii sida qaar badan oo guryaha ay ugu timid tii alle cabdalla maxamed cali kaar cabdalla nairobi oo degan london walaashiis oo deganeed sweden balse booqasho qoys ugu timid ayaa wakhtigu ugu galay halkan haddaba sidee wax u dhaceen cabdalla ayaa inoo sharaxaya walaashay khadiijo maxamed cali kaar khadiijo baarcad ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto waxay ahayd geerideeda geeri aad u xanuun badan gabadhu waxaa weeye cudur markaas ay qabtay oo aan ku ognahay ma jirin waxaa la dhihi karaa sidii soomaalidu ay dhahdoo kale mawtulfajac xogaa way iska xanuunsatay marka gabadhi waxay ku dhimatay guriga de waa garan kartaa ilmo qurbo jooga oo weligood allahood aanan mayd arkin oo aniga ruuxayga ugu weyne aanan xataa weligay waxaas la kulminin guriga dhexdiisii gabadhii noogu meyday ay ku dhimatay ka bacdii dee murugadii iyo dhibaatadii meesha ka dhacday ambalaastii waxay u yeerkoodii markii ambalaasta noo timid iyo markii booliiska noo yimaadeen waxaa nooga sii darnaa meydkii oo guriga noo yaalay ilaa iyo subxii dambe wakhtiguna wakhti iska xun ayuu ahaa oon la isku imaan karin ruux bini aadan albaabka igama soo istaagin waxaa u baahan tahay decision inaad gaartid ama go-aan meydkii sida loo qaadaayay meesha la geynaayay meelaha lagala xiriiraayay meeshaad gey lahayd runtii wallaahi waa wax dhib badan oo na soo maray ahayd xagga duugitaanka maadaama aysan ayada isbitaal ku dhimanin oo ay guri ku dhimatay gabadhuna ay ahayd gabar ka timid sweden meesha ay ku dhimatana ay tahay london waxay u baahan tahay in ay hayso g b ama meel caafimaadka ay ka qoran tahay kii raadinteedii tii ay igu qaadatay ka bacdi alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala waa noo fududeeyey gabadhii duugteedii si fiican baan u duugnay codkaasina waxa uu dambeeyey warbixintii mawliid xaaji cabdi dhegaystayaal qaarkiin waxaad nagala socotaan barteenna bbcsomali.com ka qaybgal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message taleefanka nambarkiisu yahay 4477862000 kadiba waxa ay kula tahay BBC Somali waa hagaag wararka Puntland haddaan dib ugu laabanno waxaa soo baxday qiimeyn ay dowladda Puntland iyo hay-adaha deegaanadaasi ka howlgala ay ku sameeyeen khasaarihii ka dhashay daadadkii halakeeyey magaalada Qardho waxaana qiimeyntaasi lagu ogaaday in ay saameynta soo gaartay dad gaaraya 48,000 oo qof ayna naftooda ku waayeen 8 qof halka weli la la'yahay ilaa 10 qof oo kale arrimahaasi ayaa waxaanu ka wareysanay Cabdiqafaar Cilmi Xange oo ah wasiirka qorsheynta ee Puntland wuxuuna u waramay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh oo ugu horeyn weydiiyay faahfaahinta warbixintii ay soo saareen haddii aan kuu soo koobo warbixintii qiimeyntii 4 beri oo lasoo dhaafay ay samaysay dowladda Puntland iyo hay-adaha ka howlgala Puntland UN-ka iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah waxaa warbixinta ogaatay dadka guud ay ku yeelatay saameynta waxaa tiradoodu gaaraysaa 48,000 oo qof ama 8,000 oo qoys waxaa dhintay inta la hubo 8 qof waxaa la la'yahay 10 qof waxaa ganacsiyada ku burburay tiradoodu waa 1,020 waxaa burburay beero 250 ah waxaa burburay ceelal biyoodyo 4 ah sidoo kale waxaa iyaguna waxyeelo weyn soo gaartay baybkii magaalada biyaha siinayay 13 bayb ayaa meesha ka baxday waxyaabaha xoolaha 7,000 oo xoolo ah ayuu roobku sii qaatay tiradooda khasaaruhu marka walaal haddaan in si kooban kugu sawiro inahaas ayuu gaarsiisan yahay waa gartay marka waxaad u kala qaadeen hanti maguurto ah iyo hantida kale ee lagu qiimeeyo dabcan sida baqaarada waxa yaala dukaamada waxa yaalo qaabkeed u kala saarteen qiimeyntan
qiimeynta cabdisaaq waa su-aal fiican. waxaan u kala saarnay dhinacyo kala duwan baan ka fiirinay. waxaan eegnay horta dhinacaas ganacsiyada 3 meelood baan ka eegnay. waxaan ka eegnay dhinaca hantida dhuntay oo commoditieska wax la yidhaahdo, maciishadii meesha taalay dhuntay, iyadoo loo fiirinayo ganacsiyadii kuwa yaryaraa iyo ganacsiga waaweyn iyo kan meel dhexaadka intaba loo fiirinay. dhanka waa ka eegnay. dhanka kale aan ka eegnay waxa weeye ganacsiga laftiisu dee dukaamo iyo dhismayaashii wixii gaaray waa ka eegnay. waxaan kaloo eegnay tirada marka saasaan u kafaysanay. dhanka kaleeto hantida maguurtada kuma aan sheegin markii hore 750 guri ayaa wax soo gaareen oo burbur soo gaaray. marka sidaas ayay wax u dhaceen. waxyaabaha kale oo dhacay waxaa kamid ah oo iyadana aan ku sheegin wadooyinka 5 wado oo magaalada ah ayaa iyaguna xirmay oo waxyaalo soo gaartay. waxyaabaha dhacay waxaa kamid ah deeqadii biyihii waxay ka tageen maaragtay meelo badan oo xirmay, isku socodkii magaalada qaybo kamid ah ayay xireen. marka khasaaro dhinac kasta markii laga eego runtii lixaad leh ayuu ahaa. waa gartay. marka ma egteen marka laga soo tago hantidii aad qiimayseen dadkii hantidan lahaa ma la xiriirteen oo ma la og yahay dadka khasaarahan uu soo gaaray? waa la wadaa. dadkoo dhan waxay u kala qaybsamaan dad hanti ay ka burburtay iyo dad barakacay. 8,000 oo qof oo affected-ka ah waxaa barakacay 3,540 qoys oo kamid ah ayaa barakacay. dadkii barakacay waxaa lala gaaray raashin hadba intii tabari noqoto baa loo qaybiyaa. guddi mucaawimada qaybiya oo iyagana diiwaan geliya ayaa jira si joogto ah. aad iyo aad baa dadaal badan halkaa looga galay. waxaa kale oo la wadaa diiwaangelin lagu wadaa oo laba si saxa in loo soo saaro dadkii hantidooda burburtay, ganacsiga khaasatan wixii ka burburay in la ogaado. guddi ku filan oo guddigaas ayaa arrintaa ka shaqaynaya. waxaa kale oo jira wadooyinkii waa la banaynaya oo dawladdu banayn bay 3 Abriil soo dhaafay ku wadaa. waxaa jiri doona noo sii daba joogi doona marka qaybtan hore wejigan hore oo ka jawaabistu ay dhammaato in xal waara loo helo daadadkan soo noqnoqday iyo fatahaadahan. magaaladu atas waxay dhex taallaa tog. haddii marka sidaan lagu daayiyo waxaa imaan kartaa roob kale markuu soo noqdo inay meesha iyadoo dhanba ka baxdo. sidaas weeye qorsho walaal. waa gartay. dadkan ma loo xoolo celinayaa marka wasiir? dadkan dhibka uu soo gaaray haddiiba la karo ka dawlad ahaan ama cid kaleba in wax la taro ma laga yaabaa? aad iyo aad saasaan qorsheynaynaa. laakiin de waxay ku xiran tahay wixii la helo. hatas waad garan kartaa hay-adihii caalamiga waa la hadalnay, UN-ka waa la hadalnay, report ayaan u dirnay. kulligood fadkan maaragtay kuwada hadlaynay intii badnayd waxay ballan qaadeen inay dadaal gelayaan. musiibada yacni baaxadeed intaan la eg tahay meelo dhifay ka dhacday kii beled weyn oo kale bay waad garan kartaa. dadka waxa kale o dhan wax laga soo kaban kara weeye. laakiin ganacsiga hadduu burburo waa arrin ay adag tahay in laga soo kabto. magaaladu awal hore waxay haysay dad 10,000 ku dhow oo barakacayaal ah oo dagaaladii koonfurta Soomaaliya ka dhacay iyo abaarihii Puntland ka dhacay labaduba ay keeneen. marka inay dad intaa la eg oo 8,000 oo qoys hadeer ay barakac kale kusii biiraan oo dadkii wax soo saarayay ah waad garan kartaa dhibka dhaqaalaha iyo nolosha iyo livelihoodka dadka ay ku tahay. ka dawlad ahaan way naga go-an tahay dadaal kasta oo suurtagal ah oo dadka waxoodii looma celin kara wax yacni businesskoodii iyo ganacsigoodii dib ay ugu soo bilowdaan loogu samayn karo in loo sameeyo. iyo sida aan kuu sheegay in xal waara loo helo xaaladda fatahaadda. marka waa la kaashanaynaa cid kasta oo saaxiib nala ah waana ku dadaalaynaa inaan wax u celino insha allah. cabdiqafaar cilmi xange wasiirka qorsheynta ee Puntland oo u waramayay wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayuu kaasi ahaa. haddii aynu ciyaari eegno kooxda Tottenham ayaa hogaaminaysa tartan loogu jiro la soo wareegitaanka ciyaartooyga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee horyaalka dalka Spain Ivan Rakitic. wargeyska Mundo Deportivo ee ka soo baxa Spain ayaa shaaciyay in kooxda horyaalka Ingiriiska ka tirsan ay dadaal weyn ugu jirto sidii ay heshiis oo la saxiixan lahayd ciyaartooygan 32 jirka ah. idaacadiina waa naga intaas. Bushra Nuur Maxamed ayaa idin la socodsiinaysay. waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin dhageysigeena.